ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Gabon ayaa goobjoog ka ahaa guushii lama filaanka ahayd ee Blaugrana ee ka gaartay Real Madrid El Clasico-dii Axaddii la soo dhaafay, waxaana lagu soo waramayaa inuu booqday qolka labiska ee naadiga. Wargeyska Isbaanishka ee Sport ayaa qoray in intii uu ku guda jiray booqashadan, inkastoo uusan si toos ah ula xiriirin madaxweyne Joan Laporte, Aubameyang wuxuu si cad u muujiyay rabitaankiisa inuu ku laabto kooxda Barcelona, xitaa wuxuu diyaar u yahay inuu dhimo mushaarka si uu u fududeeyo soo wareegitaankiisa. Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay u furan tahay inay joojiso qandaraaska weeraryahanka sanad ka hor heshiiskii ay la galeen, isla markaana ay u ogolaato inuu dib ugu laabto kooxda reer Catalan xagaagan. Kusoo laabashada Aubameyang ee England ayaa ka dambeeyay codsigii gaarka ahaa ee ka yimid Thomas Tuchel, kaasoo maalmo yar uun kadib laga ceyriyay shaqada. Intii uu xilka hayay Graham Potter, 33 sano jirkan ayaa kaliya saftay 18 kulan tartamada oo dhan. Sida muuqata way iska caddahay in Aubameyang loo baahnayn kadib markii laga saaray kooxda Blues ee Champions League iyo ka maqnaanshiyaha kooxda ee labadii kulan ugu dambeysay Premier League. Barcelona iyo Xavi ayaa lagu soo waramaya inay soo dhaweynayaan tallaabadaas, iyadoo Aubameyang uu wacdaro ka dhigay gobolka Catalonia hadday tahay habdhaqankiisa banaanka garoonka iyo wax ku biirinta, isagoo 13 gool dhaliyay 23 kulan oo keliya.